بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه أستعين على أمر الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ودرس جني لبعض مادة الصومالية جلسة التضباط وأستاذ عبد الرزاق محمد حيران ما أنت موضوع المقادم دون أرضية كسور هذا وهذا موضوع هاي وقته ويصدر صعده انت انا الاخرين كهر عشر قبل سؤالان ارضي كستو بل اسكو داي او كجواب كو maxaa u dhaxeeya nolosha faqiirka iyo nolosha taajirka dabcan waxa u dhaxeeya farq aad u weyn bal ka fikir oo ka jawaab su'aasha labaad geesiga iyo fulaygu maxay ku kala duwan yihiin waxa u dhaxeeya farq aad u weyn geesigu waa ninka difaacaya wadanka diinta iyo intii la amray difaaco fulaygu inta waa laga waayay saddex waa maxay taajirnimo waqti nin walba dhinac ayuu qaadi karaa nin baa oran kara waa nin haysta nin baa oran kara waa nin iimaan ku buuxo nin baa oran kara waa nin ku qalacsan waxa uu qabanayo hawshiisa shaqadiisa su'aasha afraad ma jeceshay adigu waa ardaygan sheegayay inaad noqoto taajir dabcan waxa weeyaan jawaabtu waxa marayna qof bay oranaya inaanu jirin su'aashana haddii aad lacag badan yeelato maxaad ku qaban lahayd jawaabtana qof kasta si uu la muuqato ayuu kaga jawaabaya in baa oran lahaa anigu waxaan ku dhisanaa masaajido aakhiraan runtii maanta u shaqaysan lahaana waana habka ugu wanaagsan in baa oran lahaa anigu waxaan ku qabsan lahaa guryo waan kaydsan lahaa wama ila dalik haddaba heestan waxaa tiriyey abwaankii weynaa ee caanka ahaa allah u naxariistee ibraahim sheekh saleebaan oo lagu malaalisi jiray ibraahim gadhina abwaanku waxa uu heestan kaga hadlayaa isbedelada waqtiga iyo waayaha noloshu waa halkaa labada gelin adoo maanta hodana ayaad beri noqonaysaa nin faqiir ah oo waxba aan haysan adoo maanta faqiir ah oo aan waxba haysanin ayaad noqonaysaa beri nin hodana oo kambaniya waqtigu markaa wuu isdaba socdaa waxa uu ku bilaabay maxaa dayr cadgee la hallaabo dib jiray oo cunay dugaago ninkii lahaa daydaya geeli uu dayacay ee uu ilaashan waayey ee dabaysha raacay ee iska tegey dhaxda waxaa ka helay bahalo geeli waa bimadhiyeenba ninkii geelahaa lahaana kolba meeliyo goob ayuu ka baadigoobaya uu leeyahay walahi geela noocaas oo calaamadaa leh ma haysan warka ma hayo maxay dantu ciishay wiilo dulqaad iyo deeq lahaayo dadkuna doqol moodaya waa kelmad runtii la yaab leh imise dhalinyaro ragga dhaxaadka ah ee xoogga ah oo caqli badan oo dulqaad badan oo akhlaaq wanaagsan laakiin waxba aan hayn oo miskiin ah dadku laakiin ay moodayaan in doqol dadku had iyo jeer waxaa qof sababka lagu miisaamaa waa dhaqaalaha iyo lacagta haddii aan waxba haysanin runtii waxa uu noqonayaa ninka miskiinka ah dadku ay moodayaan inuu doqon yahay waqtigu isdaba socdaa waqtigu waxa runtii wada socdo weeyaan ee kala dambeeya adoo deganaa abaar meel abaar ah latu ay qalashay adoo deganaa mar buu dirir ku da'aayo oo roobkaasi ku da'a daruuruhu ku urtaanood xareed ku dabaarata ninkaagii abaarta iyo boodhka qasanayay markaas xareed ku da'aysayo waadiga ku maydhay ee ku maartay isku habeeyay wama ila dal ku dabaasha maxaa laba ruux isdoorto dad wada dhashay looga qariyo kuwii xigay loogu dowgalay halkan wuxuu ka warramaya waa xasadka iyo dhibaatada runtii qaar ummadda ka mid ku
kuwa alla u nabeeyey ay kula kacayaan weliba dadka ehelkii qaramada ah maxaa duuni lagu lugo-ayo inaba nabad lagu degayno sidaa doonaysa noqonayn adduunyadan waa daar ilaahay xukma subxaanahu watacaala waa daarta imtixaanka sida had iyo jeer deganaansho iyo dhib loo helo dhib la-aan waa adagta sidaa doonaysa noqon mayso talada ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala adoo dayr adag dhistaa adoo dhaqaalo adag dhistay dayr adag iyo hanti badan yeeshay ismeel walba ah runtii iska adkeeyey ayaa waxaasoo dhan buu ilaahay jalla wacala kaa dubin karaa ilaahay kaa dushaayo aada noqotaa nima waxba lahayn danayso adoo lahaa adoo islahaa bal dantaada dhis oo dantii guudna aad ka tagtay maxaa kuu dhici kara mar baad dacar qoosataayo dacar baad ninkaaga cabaysa dacartuna waa geed qaraari weya oo aan qof aan cabi karin dhunkuul ku durduurataa ta ka darana waa tan geedkaas sunta ah ayaad cabaysaa ardaya wanaagsani intaas ayaan kusoo gabagabinayaa aquulu qawli hada allahuma salli calaa muxamed asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu